saxaabi la yidhahdo sacad ibnu mucaad iyo waxaa saaxiib ahaan jiray nin gaalada ka mid oo umayata bnu lkhalf la yidhaahdo. sacad ibnu mucaad waa odayada reer madiina. markuu umayata bnu lkhalf ama shaam ama meelahan ku socday uu madiino soo maray wuxuu ku degi jiray sacad ibnu mucaad. sacadna markuu cimro tago fil jaahiliya waa la cimraysan jiray waana la xaji jiray, waa diintii nebi ibraahim waxyaabihii ka hadhay. marka uu xagga tago waxa uu ku degi jiray umayata bnu lkhalf. sacad baa soo cimro tegey, umayuu ku soo degay. dabeetana umayuu yidhi bal waqti aan cimraysto tawaafay eeg. goor duhurka dhowaada buu yidhi iminkay meeshu yaro faaruqtayna keen. markuu isyidhi soo tawaaf oo meesha marayo ayay abujahl isku soo baxeen. abujahalla waa garanaya, war waa kuma ninkani? maasaa la yidhi waa sacad ibnu mucaad. sacad baaba maanta, waana colaaddii muslimiinta iyo gaalada waa socotaa, waa laba magaalo aan isu gudbin. sacad baa maanta intuu maka yimaado xorriyad u dawaafaya buu leeyahy. sacadna wuu xanaaqay, dabeetana isna erayo kulul buu ku yidhi. markii abujahal iyo sacad afka isla dhaafeen oo wada hadleen ayuu umaya baa wuxuu yidhi sacadow ninkani waa odaygii makee saa hawla hadleen. abujahal buu leeyahy ana erayadaa lagu odhan waa odaygii makee. sacad baa cadhadii wuxuu yidhi wallaahi adigana nebi maxamed wuxuu noo sheegay inaynu ku dili doono. aduu waxaad ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa abujahale adna in lagu dili doono. markaasu wuxuu yidhi umaya fii maka, ma makaa laygu dilayaa? intuu naxay, waayo nebi maxamed inaanu been sheegin way yaqaaneen. war ma makaa laygu dilayaa buu ku yidhi. markaasuu yidhi garan maayo, laa adri. markii ay dawaafkiiga ka soo noqdeen ee guriga ku soo noqdeen ayuu umaya la hadlay xaaskiisiiyo wuxuu yidhi umu safwaanay ma maqashay sacad wuxuu yidhi? muxuu yidhi bay tidhi wuxuu sheegay inuu maxamed u warramay inay i dili doonaan. dabeetana waxaan weydiiyey ma maka igu dilayaan? wuxuu yidhi ma ogin. haddaba ilaahay baa ku dhaartay inaanu weligaba maka ka baxayn, ninkii u tagaba ha dilaan. yacni anugu maka dhaafi maaya buu yidhi. dagaalkii beder markii uu dhici doono ee quraysh war uu yimi, safarkiini iyo awrtiini iyo dhan muslimiinta qaadatay uu warigu soo galay, ayaa abijahal ciidanka ururinayay dagaalkii beder ciidanka ka qaybgeli doona. umayuu yimi, umayata bnu lkhalf. dabeetana wuxuu ku yidhi umaya soo bax. umaya wuxuu yidhi war anugu bixi maayo, anugu waa iska joogaya. wuxuu ku yidhi abujahal يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. dadku hadday arkaan inaad maanta adigu hadhay, adigoo dadka meeshan degan waayeelkoodii haddii la arko inaad adigu hadhay, cidibay raaci maysa buu abujahal markaa yidhi. adigu dee dadku aday ku eeganayaan buu leeyahay haddaad adigu hadho yaa baxaye kale soo bax buu yidhi. abijahal baa ka dayn waayey soo baxday. markuu abijahal ka hadhi waayey ayuu wuxuu ku yidhi haddaba haddii dee aad iga tegi weyday awrka u dheereeya magaalada ayaan iibsanayaa ayay baadi doon. awrka ugu dheereeya ayaa loo keenay, markaasuu iibsaday. xaaskiisii buu u yimi wuxuu yidhi musafwaanay ii xidhxidh waa baxayaaye. oo miyaad ilowday bay tidhi saaxiibkaagii reer yatrib warkuu kuu sheegay miyaad ilowday? naa waan la yara baxayaa unbuu yidhi si raaci maayo waa iska soo noqon doonaaye ii xidhxidha awrka buu yidhi hore u raaci. waxaad dareemaysaa siday u rumaysan yihiin inaanu nebi maxamed been sheegaynin. hore u raaci maayo buu yidhi waa wuu baxa. waxay yidhaahdaan meel lama dego ilaa awrkiisa xoog buu u xidhaa, wuxuu yidhahdaa ha lay ilaaliyo. xadiidku bukhaari ku yaala. إلهي قرآن كوحلي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما كان ظالمين تأديك بينين ما ينبغي إلهي لي النبي محمد الضاطي ويؤجين إن تكون شيء لكن والظالمين إلهي آيات كيس الضفيرة يا ربي سبحانه وتعالى وأؤجين إن تكون شيء إلهي آيات كيس وقال الله ضفيرة.
وصعدي أخيرا وحكم النقضي أمية رجل ودي لي dagaalkii Badar waliba qisar dheer buu leeyahay dagaalkiisu laakiin wuxuu baan uga socdaa sidoo u rumaysnaa warka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu sheegayo iyo sida aanu u beenin karin ee halkii uu nabi maxamed sheegay loogu dilayo wuxuu ka mid noqday ragii la dilay waxyaabo nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam waxa ka mid ah nin muslimiinta dadkii la socday dagaalamaya ka mid ah buu ku yiri hada min ahli naar kana waa ahlu naar أبا هريرة وحليه هاي نينكي انتو دقالمي ودادك برشكيان بويل هذين ما نكن سيدانو الدريرة يا مسلم كسانو الدفاعي أهل النار أيا اللي يري هبل ما انت وو دقالما وسو دقالما يقول انت ورا بايتمي مركا صادتك شكيان نينكا هاد دقالك كل انتي جهاتما يبالا لي وأهل النار دباتنا kadib baa warkii beenoobo la yidhi warninkii uma dhimanin ee waa dhaawac culus oo waa jiifaa kadib ayuu ninkii dhaawacii intuu adkaysan kari waayuu seeftiisii qaado isaga isdilay markaasaa nabiga loo sheego la yidhi ninkii isaga isdilay allahu akbar buu nabigu yidhi ashhadu annii cabdullaahi wa rasuuluh ilaahay baa weyn waxaanan qiraya ka markhaati kacaya inayna ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii ahay بلال بيري ويرا وشيك دتك هذا واحد كتير هذا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إلهي سبحانه وتعالى الجنة مقالية نفعا مسلمة هين دين تنة مركة قاركوت كفاجرة أي الله قرقارة ويد دفاعه حديث أبو خاري وريه لكن متكلم صحيحين كبا وريه سهل بن سعد الساعدي وحط الماما يقصة كان وياك ننقذ زمان لورنشري ومسلمين ثلاثة قال قلي وآن شاذة ولا فاذة مد دقاق ضيان كتجين مالن تعطى قال كيسقون با ضدك مريي مركز الله يدي إلى الرسول كيسيو مانتا قبتي دقالي مانتا قزمان با اسكاله وهي رجل الدلية وهي مشكلة كده عضي نكاسا ما أنت جيستي ونوجو جيستي سنة مركز يدي أما إنه من أهل النار لكن كأي شيء إنسان وأهل النار بنا بقول دبتنا أن الصحابي يكثم الله يهدا يري من نبي محمد كاس يري وأهل النار ها أنا ما أنت تقال شقة قبل ما يني كمان دبقلي يا بلو حسنا يعني لعلنا يا أبو يري وضبقله وحولي مركو فرس كفولي إريانا وسود بإريا مركو يرجع بينا وانجابيا وشقة كلام قبنا يعني كانوا بنيجي يا أبو يري بالمانت حالك يسوح النقضة سيدي وجود دجال ما يبيرو وداو عمل مركزان داو عيسي إمي دبتنا داو عين تحج سكر واي أيو سيفتي سين تدولك كتاعي أيو دشك جبهة يقولي دبتنا سيفتي سي بعد الشعور انتي صحابي يقول حلي وان صار نقضون النبي قالوا يما وحاده أشهد أنك رسول الله ونجي نجي دبور دير هذا عيني تا النبي كسر نقضي وحن كوري بوري وحن كمر خاطك عيا إلى إله الرسول كيسيتهاي مركز النبي بوري محا كوع صبياني محا دركت دبا تنوح وشاقي نكينو ما تبدأ بالسعودي آخر كيرا نكينو يسقو استلي مركز النبي وحكوين إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة dadka badhba sida dadka u muuqata ahlu janna camalkooda sameeya ilaa xagga dambe marka la gaadho ay ka weecdaan oo ahlu naarka ku biiraan dadka qaarna ahlu naarka camalkooda ay sameeyaan ilaa saa dadka u muuqata ilaa marka dambe la gaadho ay ka weecdaan oo ahlu janna noqdaan yani al-umuru bi khawatimiha qaarna xagga dambe bay ama ka gaaloobaan ama ka imtixaanku kaga dhaca isagoo waagii hore fiican ahaan jiray qaarna isagoo markii hore mushkilad badnaaba xagga dambe ka toobad keenayo isagoo saalixa ayuu dhintaa weeyaan axaadiistaasoo dhamme waxay tilmaamaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwaan ka warramay oo dhamme waa ama gaalo ama dad ahlu naara iyadoo
dagaal laga soo noqdo la soo socdo ayaa dabayl xoogani ku dhacday dadkii markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabayshan aan arkaysaan waxaa loo soo diray mid munaafaqa inay disha buu nebigu yidhi munaafiq inay dishaa loo soo diray madiinaanu nimi ayuu leeyahay saxaabigu markaanu madiina nimina faidaa munaafiqun cadiimun min almunaafiqiina qad maat xadiiska saxiixa muslim ku yaala waxaanu u nimin buu yidhi munaafiq weyn oo munaafiqiintii ugu caansana ka mid ah oo bahashu dishay oo dhintay yacni wuxuu tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dabayshaha ilaahay wuxuu ku itixaamay oo loo soo diray mid munaafiqiinta ka mid ah inay disho calaamad bay mowdkiisa u tahay waxaan ka warramayno dhan waxay tilmaamaysaa caalimu lghaybi falaa yuhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada ilaahay baa qaybka oo keligii cidna uma muujiyo ilaa iyo rasuulu raalli uga yahay mooyaane baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a masaa'ilkan baynu leenahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xiraa ayuu fuulay waa jabal min jibaal maka isagoo fuushan oo ay la socdaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo talxa iyo zubayr ibnu alcawaam waa raggii casharatulmubashiriin gruub ka mid iyadoo ay la socdaan ayuu dhagax la dhaqdhaqaaqay markaasuu nebigu intuu cidhibta ku dhuftaybu wuxuu ku yidhi ihda famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiid deg buu ku yidhi korkaaga ma saara nebi iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane cid kale korkaaga ma saareen anas ibnu maalik xadiid kaloo bukhaari warinaya kaasi saxiixu muslimku ku yaallay baa wuxuu sheegayaa jabal uxud buu nebigu fuulay isagoo ay la socdaan abibakar iyo cumar iyo cuhmaan saddexdaasi uunbuu sheegay marka kan markaasuu gariiri buurti markaasuu nebigu cagta ku dhuftay dabeetana wuxuu yihi uhbut uxud uxuday sugan fainamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan waxaa korkaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid afartaasaa korkaaga saaranee deg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam يعني حديث كوحو تلماما يا إنه النبي محمد نبي كو أبي بكر نين الصديق يهي قوب دقال إن أنا كل مرينين لبدا الصحابية كلنين لديلي دونه كعن كقرطرني إن يديلي دونتو أنت سيبا وحي شيء غيسا إنه يهي محي أنا وغيب هذا كوي هراء إنسان شجنا يورد من أنت بدن قال إنه كورني ما له كل مريان markana waxaynu tilmaamaynaa muslimiin saxaabadiisii ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay waa laydin dilayaa geeri caadiya dhiman maysaan nebigii abibakar geeri caadiya ay dhinteen amaa cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo talxa iyo zubayr dhammaantood dulman baa loo dilay dhammaantoodba aan bal mid mid u tilmaamno عمر نبي عليه الصلاة والسلام ومرأة عصب ستو أرك مرأة حرا نظيفة كسر النبي حكوا أجديد ثوبك مغسيل مرأة أنا ما تحرنت مية عصبت مسوى مرأة ما يدي عمر بوحدي بالغسيل ما إله رسول كسي أوامدان ما يدي نبي حكوا البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا مرأة عصب حرا adigoo mid la mahadiya ama mid ilaahay mahadinaya noolow wamut shahiida dhimo adoo shahiida saxaabadii uu nebigu sheegay siday u dhinteen cumar isagoo imaamulmuslimiin ah oo salaad subax dadka tukinaya ayaa waxaa soo galay abulu'lu'at almajuusiy mugiirat bnu shucb addoon uu lahaayo persian eeraani farsamo yaqaan ahaa oo midi soo tuntay labada dhanba afu leh xaggii xaggaba wax u gelaysa sita ayaa salaada soo dhex galay dabeetana cumar ayuu dhinaca intuu ka geliyo isu wareejiyey oo imaama uu dhacay 13 saxaabada ka midana miduu dilay iyo miduu dhaawaco
ayuu ka dhigay cumar wuxuu u dhintay markaa isagoo salaad ku jira ayaa toorri lagu dilay nebigu siduu sheegayay buu shahaado qaatay